Audio Jungle. Audio Jungle. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرداد قيمها شرفت لسود وهذا وعن كوجد جرنا كورس كمبيوترايز أكاونتينكا قيبتي هردعة وهذا مانوالكا أن كفهمين حسابت مانوالكا عشر كنشانات أيان قادنينا عشر كي هوري أفراد أردقي صودا ودي سوف فهمي waxaan rabaa su'aalahan oo kooban oo sheegayo ardayga fahmay oo ka jawaaba su'aalahaas asaga isweydiiyay ka jawaaba oo si fudud u fahma casharkaas inuu soo fahmay su'aasha koowaad waxay tahay acid xaguu ka bataa xaguuna ka yaraadaa sidoo kale liability oo deymaha shirkadda lagu leeyahay xagee ka bataan xageena ka yaraadaan yacni debit iyo credit meesha ka bataan sidoo kale owners capitalka debit iyo credit meesha uu ka bato iyo meesha uu ka yaraada laga rabaa revenue-ga halka uu ka bato iyo halka uu ka yaraado expense-ga debit iyo credit dhinaca uu ka bato iyo dhinaca uu ka yaraada laga rabaa owners drawing-ka sidoo kale ugu dambeyntii dhinaca uu ka bato iyo dhinaca uu ku yaraado ayaa laga rabaa haddii intaas aad ka jawaabto adigoo aan buug fiirin oo aan dib ugu laaban casharkii hore waad soo fahantay waad ku guuleysatay inaad casharkaas ka soo faa'iideysato waxaan qaadanaynaa learning objective 2 waxaan ku qaadanaynaa indicate inaan muujino how a journal sida journalka is used loogu isticmaalo in the recording process hanaanka diiwaangelinta marka la diiwaan gelinayo dhacdo transaction journalka sida loo geliyo horta journal waa maxay journal waa xisaab gelin xisaabta kow in la geliyo akoonka in la geliyo halka laga geliya la yiraahdo journal marka journal is a detailed account waa akoon faahfaahsan that records kaasoo lagu diiwaan geliyo all financial transactions dhammaan dhacdooyinka maaliyadeed of a business ee company-ga uu leeyahay ama ganacsiga uu leeyahay marka steps-ka in recording process marka la diiwaan gelinayo hanaankaana la maraa analyze kow waxaa la falaqeynayaa each transaction walba haddii transaction la diiwaan gelinayo uu yahay iyo haddii uu yahay mid aan la diiwaan gelinaynin waa soo aragnay qaar aan la diiwaan gelin karin ama aan looguba talagelin la diiwaan geliyo marka la falaqeeyo oo la soo go'aamiyo transactionka in la diiwaan gelinayo enter transaction waxaa transactionka gelinaysaa journal oo ah xisaab gelintii ayaad gelinaysaa journal markaa geliso kadib transfer waxaa u bedelaysaa journal information warbixintii ah inta gelisay oo journalka aad gelisay waxaa u bedeli doontaa ledger account ledger ayaa u bedeli doontaa ledger waxaa la yiraahdana gadaalan ka arkaynaa meeshan si kooban business documentiyada la isticmaalo waxaa ka mid ah ama documentiyada la isticmaalo waxaa ka mid ah sales slip ganacsiga warqadda ay ku qoran tahay sliptiga iyo jeega caadiga oo lacagta lagu qaado iyo bill warqadda deymaha muujinaysa warqadaas marka maxay ku faa'iideynayaan qofka accountant-ga provide waxay siinayaan evidence caddayn of the transaction dhacdadan inay dhacday hadhowti haddii lagu yiraahdo cadday as accountant waxaad la soo baxaysaa invoice-kan ama sales slip-tiga ama jeega lacag bixinta ah okay waxaa noogu xiga steps hanaanka in recording process ee lagu diiwaan gelinayo journalizing in la journal gareeyo journal muxuu ahaa xisaab gelinta in la sameeyo aye illustration waa example-kan aan sharaxaynaa kadibna waa diiwaan gelinaynaa step on September 1 bisha September 1 Railney ninka la yiraahdo invested wuxuu maal gashtay 15,000 oo cash in the business-ka ama company-giisa ayuu wuxuu ku maal gashtay 15,000 sidee loo diiwaan gelinaa marka intaas kaliya sidee loo diiwaan gelinayaa adigoo isticmaalaya debit iyo credit waxaa loo diiwaan gelinayaa cashka waa acid noo batay oo cash na soo gala waaye marka wuxuu noqonayaa debit sababtoo ah waa acid batay acidna debit uu ka bataa dhinaca credit waxaa tagaya capitalka oo owners capitalka qofka ownerka ah capitalkiisu wuxuu tagaya dhanka creditka oo dhanka creditka ayuu ka badan jiray marka cash debit ayaa tagay owners capitalkana 15,000 credit ayuu tagayaa
an softbad shirkadda la yiraahdo purchase waxay soo gadatay computer equipment qalab computer ayuu soo gadatay shirkadda $7,000 oo cash ayay ku soo iibsatay tan sidee loo diiwaan gelinayaa transaction kan asset oo kaliya ka gudaheedu ka dhacaya marka equipment ama qalab oo computer waana soo galaya dhanka dhibidu tagaa cashna uu naga yaraanaya ila shirkadda cash ka baxaya waa asset yaraaday credit ka yaraanaya marka muxuu noqonayaa equipment oo dhibid ah 7,000 iyo cash oo 7,000 oo credit ah waxyaabaha tiriga qofka accountiga laga rabo inuu fiiriyo waxay tahay asset waxyaabaha uu saameeyo waxa kamid ah asset kaligiis inuu transactions sax noqon karo ayadoo liability oo nidisi wati midna la saameyn sidoo kale halkan fiirso debitka account la dhigayo iyo debitka creditka account la dhigayo markasta inay sinaadaan sax ma waa in uu debitkuna horeeyo creditkuna dambeeyo waayadan waxay kamid tahay tricks laga fiirinayo as accountant steps marka in recording process steps marka la diiwaan gelinayo symbol mid wuxuu noqonayaa symbol oo laba transaction oo kaliya noqonaya laba dhacdo laba meel uu saameynaya compound entry laba meel wax ka badan uu saameynaya marka July 1deedii Pater company la yiraahdo Butler company la yiraahdo ayaa purchase wuxuu soo iibsaday delivery truck baawur ayuu soo iibsaday costigiisu uu yahay 14,000 Idbase markuu wuxuu bixiyay 8,000 cash 8,000 oo cash uu iska bixiyay now hadda an agree waxaan la isku raacay to pay inuu bixiyo the remaining inta soo harta oo 6,000 on account deyn inay ku noqoto marka sidee loo diiwaan gelinayaa transaction kan wuxuu noqonayaa compound entry saddex meel uu saameynaya company wuxuu soo gatay equipment ya soo gala oo costigiisu uu yahay baawura soo galay oo costigiisu yahay 14,000 dibidu tagaya marka waa qalab na soo galay equipment qalabku meequu noqonayaa 14,000 oo dibid tagays ila akoonka assetka wuxuu ka bataa dibid lacag ayaa naga baxaysa oo cash ah assetkeena yaraanaya xagu ka yaraada credit waak okay sidoo kale waxa la isku raacay account payable deyn hor la in lagu yeesho deyntan markana lagu yeelanayo waxay ka badataa credit dhanka creditka ayaan tagaynaa marka waa kan aydan 14,000 oo debit iyo credit oo 14,000 aydan waxaan tagaynaa line objective 3 waxaan ku qaadanaynaa explain inaan sharaxno how a ledger sida ledgerka and posting sida ledger loo sameeyaa and posting loona post gareeyaa taasoo ka caawinaysa recording processka ledger maxaa la yiraahdaa waa xisaab dejin tii hore waxay xisaab gelin marka xisaabta geliso inaad dejido Soomaan oo isku soo dardarto isku kala jarto marka xisaab dejintaas ledgerka loo isticmaalaa ledger is a collection waa soo aruurinta of amounts lacagaha ama amountiga tirooyinka la isku soo aruuriyo bal isku daro ama la kala jaro in each account walba cash oo kala la tagaya equipment ya la tagaya land ya la tagaya equipment inta la isku daray oo na soo gashay iyo inta naga baxday ayaa la isku daraya kadib la kala jaraya ledger kaas la dhahaa marka which recorded in journal entry sida lagu soo diiwaan geliyay ayaana la qaadanaya ma ahan transaction cusub la diiwaan gelinayo marka ledgerka general ledgerka waa kana contains waxa ku jira all asset dhamaan asset koodan asset aaway akoonadan hadda sample uga soo qaadan equipment waa asset landiga oo dhulka ah waa asset equipmentna waa maxay waa qalabka waa weyn waa oo shirkadu isticmaalayso supply-ga waa asagana qalabka yaryar ee xafiiska loo isticmaalo qadda iyo qalamaanta iyo waxyaabahaas iyo waa mashiinka waxba loo isticmaalo cash asagana waa asset sidoo kale liability-ga deymaha liability-ga waa kuwana interest payable salary and wage payable account payable note payable intaanu dhan waa deymaha shirkadda lagu leeyahay owners equity-ga oo afarta ka koobnaa afarta qaybood owners equity-ga asagana waa salary and wage expense waa dhanka expense-ga service revenue waa dhanka revenue-ga owners drawing waa dhanka drawing-ka iyo capital afartii akoon ku soo qaada ayagana ledger sidee loo geliyaa marka ledgerku wuxuu yahay akoonkan cash-ka ah ayaa soo qaadanaysa halkan waa akoonkii cash halkan account number ka fiirinaysa account numberku wuxuu noqonayaa
101 haddii uu acid yahay akoonka wuxuu ka bilaabanayaa 1 taariikhda la diiwaan geliyay ayaa la qorayaa explanation waa akoonka magaciisa iyo faahfaahin yar debit iyo creditna waa kan marka debit marka qaadatid waa isku soo dardareysaa dhanka creditna waa isku soo dardaree marka aad labadan isku soo dartid ayaa kala jaraysaa balansiga soo hara ayaa wuxuu noqonayaa cash balancegiis mar walbana cash balancegiis maxaa laga rabaa debit balance inuu noqdo hadda maxaa la sameeyay 25,000 oo debit aheyd ayaa 8,000 oo credit laga jaray maxay noqonaysaa marka 17,000 4,200 oo debit ayaa lagu daray 17,000 7,500 oo debit ayaa lagu sii daray wuxuu noqday 28,700 28,700 waxay ahayd debit soo maahan credit kana laga jaro 21,700 maxay noqotay marka 17,000 250 hadana ayaa laga sii jaray 26,750 ayay noqotay 26,750 kan waa debit still hadana waxa laga sii jaraya 7,300 oo credit ah hadda debit balance-ga waxa waaye 9,450 akoonkan marka saas ledgerkii lagu galiyay oo xisaab dejintii waaye waa debit waa la isku daray creditna waa la isku daray kadib la kala jaray balance-ga marka wuxuu noqonayaa debit balance waa kan journalka ayadoo laga soo qaadayo oo la keenayo ledgerka la keenayo aan aragno akoonkan marka waxaa loo diiwaan geliyay inuu ahaa cash waa cash akoonkii koobaad investmentii markii koobaad oo ownerka uu sameeyay cash ayaana soo galay owners capitalkana waa capitalka maalgelintii uu sameeyay marka debit iyo credit sana loo diiwaan geliyay reference-ga waa kana oo akoon magaciisa akoon walba akoonka asida wuxuu ka bilaabanayaa 1 akoonka capitalna 3 ayuu ka bilaabanayaa taariikhdii la diiwaan geliyay waxa marka mid loo soo qaadan akoonka cashka soo qaado balance-giisa 15,000 la gelinaya creditna ma jiro hadda marka balance-giisu oo debit-ka ah waa 15,000 dhanka credit-ka aan tagno waa kan owners capitalka asagana waa akoon kale ledgerka sidiisaba akoona loo qaadanaya cash waa hal akoon haddii debit iyo credit uu kala leeyahay waa la kala jaraya haddii debit kala leeyahay waa la isku dardari doonaa owners capitalka asagana waa kan dhanka credit-ka ayuu 15,000 ay noqonaysaa waana kan waa dhanka credit-ka ayaa balance-giisa chart of account halkaan ku sharaxay chart of account si fiican u fiiri asset-ka wuxuu leeyahay account number lagu aqoonsado leeyahay account number-ku asset oo dhan 1 uu ka bilaabanaya ama 1,000 ha noqdo 10,000 ha noqdo 100 ha noqdo 10 ha noqdo akoonka waxaa shardi ah inuu ka bilowdo 1 soo ma jeedada 100 101 12 112 ama 112 126 muxuu ka bilaabanaa dhamaantiis 1 1000 waa isticmaali kartaa 100 isticmaali kartaa 10,000 isticmaali kartaa 10,000 laakiin shardi waxa inuu 1 ka bilowdo liability-ga 2 ayuu ka bilaabanayaa 200 201 209 212 labo ka bilaabana asagana shardi waxa ah account numberkiisu inuu ka bilowdo 2 owners equity-ga asagana 3 ayuu ka bilaabanayaa oo wuxuu ka bilaabanayaa 301 302 3,000 waa ka bilaabi kartaa haddii wixii ku xirantay shirkadda iskeelkeed intuu leeyahay revenue-ga 4 ka bilaabanayaa 4,000 400 mid daarta ka bilaab hadba shirkadda inta ay la egtaa akoonada u diiwaan gelinaysa ku xiranta expense-ga wuxuu ka bilowdaa hadda kan 6,000 noo qoray laakiin 5 waa la qaataa 6,000 waa laga bilaabaa mararka qaar marka expense waa akoon aad u tiro badan marka 5,000 laga bilaabaa akoonka oo expense-ga asaga waxaa la kala siiyay 6,000 7 8 9 akoonada asaga la siiyaa maadaama akoonka ugu badan expense-ga qarashaadka uu yahay baxay recording process sidoo kale aan hal mar ku celiyay meeshan expense-ga markii hadda aan tagi doono QuickBook aan qaadanayno account numberkiisa 5 ayuu noqonayaa oo kaliya waa sample aan soo qaadanayna laakiin 6,000 mararka qaar la siiyaa mar 7,000 la siiyaa saas la soco marka recording process-ka saddexdan hab ayaa la maraya markii la diiwaan gelinayo determine the type of account involved waxa ogaana horta akoonka
warka lagu siiyey akoonada horta uu saameynaya ku aqoonsanaya asset liability owners equity mid ku saameynaya labo marka akoonka uu saameynayo determine waxa go'aaminaya what item increased item ke siyaadaya and decreased by how much meequna siyaada akoonka siyaadaya midka yaraanaya iyo tirada uu siyaadaya tirada uu yaraanayo ayaa aqoonsanaya hadana labo saddex translate waxa u turjumaysaa increase badashadii and decrease yaraanshihii into debit and credit oo aqoonsanaysa yacni debit iyo credit badasho iyo yaraanshaha loo isticmaali jiray samahan sidii u turjumaysaa marka basic analysis aan aragno waa kan asset aan aragno hor transactionka marka hore on October kowdeedii CR Paid invested wuxuu shirkadda ninkan wuxuu ku maalgashtay 10,000 oo cash ah in advertising company oo xaysiimo sameeyo oo la yiraahdo Pioneer Advertising marka xaysiina la sameeyay labada akoon ay saameynaysa waa maxay xaysiina la sameeyay maahan shirkad xaysiin samaysa ayaa ninkani maalgashtay marka akoonada uu saameynaya laga rabaa kow cash ayaa shirkad soo galaya waa asset uu saameynaya labo capitalna waa saameynaya owners equity dhankiisu saameynaya marka waxaan ogaanay hadda si kooban equation analysis markaan ku sameynay in asset iyo owners equity uu saameynayo haddana meeqa ayaa badashada iyo yaraanshuhu muxuu noqonayaan assetna wuu badanayaa oo muxuu noqonayaa cash batay owners capitalkuna wuxuu noqonayaa capital batay oo ninka milkiilaha capitalkiisa badanaya debit iyo credit marka see loogu isticmaalaya asset batay wuxuu ka bataa debit loo isticmaali doonaa owners capitalna wuxuu ka bataa credit marka credit asagana uu tagi doonaa waa kan cash debit ayuu tagay creditkana waxaa tagay owners capitalka ledgerkii aan u gudbin hadana journalka sidaas loo diiwaan geliyay posting aan aragno hadana sida loo geliyay ledgerka waxaa la soo qaadanayaa cash 10,000 oo debit ayaa ku jirta waa account numberkiisa waxaan halkan waa waqtiga ama taariikhda owners capitalka asagana dhanka creditka ayuu tagayaa ledgerkiisa labadan ledgerkooda sidaas loo geliyay marka aan aragno hadana shirka October kowdeedii Pioneer shirkadda la yiraahdo purchase waxay soo iibsatay office equipment qalab xafiiseed kostigood uu yahay $5,000 waxayna saxiixday 3 bilood hadii ay ku bixiyaan 12 discount in helayaan 5,000 ayaana 5,000 waa note payable waa waqti dheer deyn laga rabo marka akoonada uu saameynayo qalabana soo galaya deyn horrana waana lagu yeelanayaa yani assetna uu saameynaya liability uu saameyn equipment iyo note payable ayuuna saameynaya labadoodubana waa badasho marka waa isla aragna halkaas sidee loo journal garaynaya equipment qalab ayaa ku soo galaya oo 5,000 note payable deyn ayaana lagu yeelanayaa deyntaas oo 5,000 oo note payable waa deyn hal sano ka badan ay ledger aan gudubno ledgerka waa kan equipment qalabka waa 5,000 dibiduna yaala note payable kana waa credit 2,000 waa labadaas 100 iyo 157 waa account numberka marnaha ku wareerin tiradu waa tan debit creditka waxa tagaya waa okay in October labadeedii Pioneer shirkadda la yiraahdo receives waxay heshay 1,200 oo cash ah oo advance hormaris waxa uu hormariyay shirka from our client macaamilkana uu hormariyay for advertising service xaysiin inuu u sameeyo shirkaddan u sameeyso rabay wuxuuna filayay in loo dhameystiro waxa la filayay in loo dhameystiro December 31 akoonada uu saameynaa laga rabaa marka 1,200 oo lacag waana soo galaysa waa cash soo galay waana deyn lagu yeeshay ila waan loo hormariyay wali shaqadii ma aan qabanin maxay noqonaysaa marka an inert service review aan wali kasban laakiin deyn lagu leeyahay deyntan waa nagu badatay cashkuna waa noo bat labaduba waa badasho marka laakiin midba meel ka bataa marka la joogo debit iyo credit cash batay debit ka bataa waa an inert service reviewna waa review aadan wali kasban oo deyn kuga ah marka creditku ka badana asagana liability wuxuu ka bataa credit ledgerka u gudbi marka Boston waa ledger Boston iyo ledger isku mid waay
cashka 10,000 hore ugu jirtay 1,200na debitka hadda ah labadaas waa ayaa ku jirto unearned service revenue-gana 1,200 waa transaction koobaad asaga laga diiwaan gelinayo oo credit on October 3 Bonnier shirkadda la yiraahdo waxay bixisay kiradii guriga oo 900 xagee saameynaya marka cash naga yaraanaya iyo expense ama qarashaad naga baxaya marka asset waa kan owners equity-ga ayuu saameynaya dhanka expense-guna ka saameyn marka cash-kuna waa naga yaraanaya xaguu ka yaraada credit rentigana oo kiradana waa qarashku asaguna xaguu tagaya debit mar walba debit lagu diiwaan geliyaa asaga aye rent expense marka waa kan waa debit cash-kana wuxuu noqonayaa waa cash yaraanaya waa asset naga yaraanaya waa 900 cash-ka awal hore waxaa ku jirta labadan oo debit ku jirta 10,000 oo transaction koobaad transaction labaad oo 1,200 transaction saddexaad October 3 waxa waaye 900 credit wana tagaya ledger-ka markii la joogan sheegaya rent expense ayadana maxay tahay waa transaction koobaad rent naga soo galayso marka debit ay 900 tagaysa on October 4 Bonnier shirkadda la yiraahdo Base waxay bixinaysaa $600 for 1 year insurance caymiski oo hal sana horumaris away taasoo ka dhici doonta sanadka dambe September 30keeda ay dhici doontaa marka xagee saameynay lacaga naga bixaysa prepaid insurance waana caymis horumaris ah marka lacag hadii naga yaraato waa credit waa asset yaraada waa credit prepaid insurance-na waa asset batay oo hantideena ay ka mid tahay wali bil walba markii insurance-gu bishaas wixii loogu talagalay expense loo aqoonsanaya marka prepaid insurance-ga waa kan waa 600 cash-kana wuxuu noqonayaa 600 asagana debit iyo credit debit waa mid kan credit-na waa kan okay cash-ka waxaa ku soo siyaaday credit oo 600 oo dollar ah oo transaction-ka afraad ka imaaday prepaid insurance-gana waa transaction koobaad oo uu saameynayo asaga debitkiisa 600 waa loo diiwaan geliyay October 5 Bonnier shirkadda la yiraahdo Purchase waxay iibsatay an essential an estimated 3 month supply qalab la isticmaalayo 3 bilood for advertising material ee shayaal xaysiin loo isticmaalayo deynina ku soo iibsatay marka maxay noqonaysaa 2,500 alaab ku fadhida ayaa shirkaddu soo iibsatay si ay xaysiimaha ugu isticmaasho xagee saameynaya marka qalabana soo galaya oo supply-na soo galaya liability deyna waana lagu yeelanaya waa conveyable ah marka maxay noqonaysaa labadan laba badasho waa deyntu nagu badatay iyo qalabana soo galay labadan meesha ay saameynayaan asset batay debitku ka bataa liability batana creditku ka bataa marka labadoodii waa markaan ledger-ka gelinay markaan journal-ka gelinay ledger-ka waa inaan u gudubno ledger-ka waa posting-ka iyo ledger isku mid waaye ledger-ka markaan gelinay supply waa markiisii koobaad oo debit waaye 2,500 account payable-na waa markiisii koobaad asagana waa 2,500 oo credit the process marka recording process-ka si kooban transaction-kan marka aqridid waa war marka asaga lama diiwaan gelinayo waxaa lagu yiri October 9 Bonnier shirkadda leeyahay waxay shaqaalaysatay 4 shaqaale ah si ay shaqada u soo galaan 15 bish each employee shaqaale walbana wuxuu heli doonaa asbuucii 5,000 5 maalmood ay shaqeynayaan payable every 2 week laba asbuuc walbana waa la siinayaa first payment-ga koobaad laba asbuuc markay shaqeeyaan ayaa la siinayaa oo lacagtooda waxaa la siin doonaa 26 bish marka waa war shaqadii ma aysan soo gelin 9 bishaana la jooga marka lama diiwaan gelinayo transaction kan kale imaw October 20keedii withdraw owner-kii wuxuu qaatay 500 oo cash ah for personal use si gaar ah ugu isticmaalo maxay saameynaysaa asset-ka waa lacag yaraaday owners equity-gana waa drawing waa lacag yaraaday ayadana marka owners drawing waa debit mar walba waa naqaanaa asaga asset yaraadana waa credit maxay noqonaysaa marka owners drawing oo debit ah iyo cash oo asset naga yaraaday ah cash-ka wuxuu noqonayaa transaction-kii shanaad oo la diiwaan geliyay 20 bisha ah marka debit credit wana tagaya owners drawing-ka waa kii koobaad marka asagana wuxuu tagayaa debit ledger-ka marka loo gudbo kana waa journal-ka transaction-kan October 26 Bonnier shirkadda la yiraahdo Always Employee Salary waxaa lagu yeeshay
shaqaalihii mushaarkooda oo 4,000 and pay them waana siisay in cash waana la siiyey si cash ayaa la siiyey aye maxaa sidee loo diiwaan gelinayaa marka asset naga yaraaday oo cash naga baxay iyo owner's equity oo ah owner's equity kan xaggu ka soo galaya waa expense waa qarash waa salary and wage expense qarashaad waa marka debit iyo credit ay u kala tagayaan aan rabaa danayna helno debit iyo credit waxay u tagayaan debit waxaa tagi doona expense-ga midkaana waa salary and wage expense waa creditna waxaa tagi doona cash-ka oo hanti naga yaraatay ledgerka markaan diiwaan gelino posting-ka ama ledgerka xisaab dejinta waxaa ku soo biiraya cash oo 4,000 oo credit ah iyo salary and wage expense oo 4,000 on October 31 Bonnier shirkadda la yiraahdo waxay heshay receive 10,000 oo cash ah from Koba company-gan ay ka heleen oo advertising service performed in October waxayna u qabteen bisha October hadda bisha October 31 maraysa bisha October gudaheeda loo qabtay marka maxay noqonaysaa adeeg la qabtay oo lacagtiisa la helo waa asset waa lacagna soo galaysa oo hanti na soo galayda waayaan owner's equity-gana waa service la qabanayo marka revenue waa revenue credit oo ka bataa asagana maxay noqonaysaa marka asset oo debit ah iyo credit oo revenue ah cash 10,000 oo asset ah iyo service revenue oo credit ah oo 10,000 ledger journal-ki waa gelin oo xisaab gelinta ah xisaab dejinta cash-ka wuxuu noqonayaa transaction-kan kale ugu dambeeyay oo 4,000 ayaa ugu dambeysay marka 10,000 oo cash ah waxay tagaysaa dhanka debit-ka tagto baraaw dhanka debit-ka ay tagaysaa ilaa debit waa service revenue-gana dhanka credit-ka ayaa lagu diiwaan geliyay ayadana account-kan marka labadan account ay saameysay summary journalizing and posting markii summary lagu sameynayo journal-ka saana loo diiwaan geliyaa marka sidaan si fiican u fiir qaabkana standard la isticmaalaa general journal-ka marka la diiwaan gelinayo waxaa isticmaalaysaa date-ka taariikhda waqtiga account title-ka ama explanation-ka account-ka waqtiga account-ku nooca uu yahay magaciisa reference-gana waa account number-ka aan idin sheegayay asset wuxuu ka bilowdaa 1 3 waxaa ka bilowdaa equity-ga 2 waxaa ka bilowdaa liability ama deymaha 7 iyo 5 iyo 6 waxaa ka bilaabanaya expense ama qarashaadka marka debit maxaan leenahay asaga waa wixii debit wixii credit waa kuwan marka sidee u diiwaan gelin warkan yarkan waa explanation capital cash iyo owner's capital ayaa isla diiwaan gelisay debit iyo credit ay tagayaan transaction walba saana taariikhdiisa inta ku qoraysa kadibna magaciisa sheegay debit iyo credit halka uu leeyahay ka sheegaysa general journal-ka sii socda wali waa sidii journal-ladii hadda aan soo diiwaan gelinay oo la soo koobay oo general journal la geliyay ayaa inta ka arkaysa general ledger hadana la geliyay ledger sidee loo gelinayaa cash la soo qaatay date-kiisii account-ka magaciisa reference-gan waa journal 1 dhamaantood debit intaana noqonaysa intaana credit account-ka marka balance-giisu muxuu noqonayaa 15,000 waana debit balance account cash account payable ayaa la tagayaa account payable waa deymaha dhanka supply-ga asset-ka intaan waa asset note payable kaas ayaa wuxuu noqonayaa deymaha marka account sidaan u fiiri account-nadoo dhan hadana mid kale review-gaas oo kale aan tagayaa hadana account walba sidaan waay waxaan ku jirnaa ledger-ki ama xisaab dejinta waxaa isku soo dardaraysaa wixii review la qabto review hal number ayuuba ahaa hal transaction ayuu naga soo galay oo 10,000 ah credit uu ahaa credit balance-giisana waa kan account-nadan kalena waa la mid sidaa u fiiri ayagana inaa fahantaa rajeynaya because hadda kan haddaan sharaxno mid kalena aan sharaxno inaa fahmi karto learning objective-ka xogaa yar dul qaata wax yar casharka kala ma hari karo waa israacsiinaynaa learning objective 4 prepare tribalance balance-ga inaan diyaarino tribalance-ga sidee loo diyaarinayaa tribalance waxaa laga diyaariyaa akoonada oo dhan inta debit-ka debit la dhigaa inta credit-kana credit waan inay isla ekaadaan debit iyo credit debit iyo credit marka la isticmaalayo debit waxaa tagaysa asset-ka
iyo expensiga iyo drawing. Creditna waxaa tegi doona wixii liability deyma ah iyo capital iyo revenue saddexdaas tegi doona. Marka isku dardar dhinacan waxaa tegaya debitka hadda waa isla ekaateen 28700 okay. Trade balance sidaas loo diyaariyaa. Marka trade balance muxuu muujiyaa inuu isla ekaadaan shirkadda debitkeeda iyo creditka akoonada ku jiro. dhammaan akoonadii oo dhan la isticmaalaa akoon lagama tagayo. Trade balance-ga limitation of trade balance caqabada ayuu yeelan karaa trade balance-ga asagoo balance oo isla eg debit iyo credit waxa laga yaabaa hal transaction oo aan la diiwaan gelin inuu jiro oo debit iyo credit ka wada maqan. Marka mar walba waa isla ekaanaan debit iyo credit ma hadii hal transaction oo iswata uu maqan yahay. Correct journal entry mid sax ah oo journal sax ah inaan la diiwaan gelin asagana oo la soo post garana waa dhici kartaa. labada dhinac haduu debit iyo credit ka wada maqnaado asagana ma la dareemi karo trade balance-ga lagama dareemi karo. Journal entry-ga sidoo kale ayadana hadii laba mar lagu soo celiyo still debit iyo credit waa isla egyihiin ilaa wax isku mid ah la geliyay marka qaladkaas asagana hore lagama fahmi karo trade balance-giisa ciladaha uu leeyahay kamid ah. Incorrect account are used in journalizing or posting. Akoon qaldan hadii la diiwaan geliyana kuma sheegayo inuu qalad yahay iyo inuu sax yahay asaga isla ekaanshadu fiirinayo debit iyo credit wax isku mid ah ma la geliyay. Marka qaladaad kalena waa ay dhici karaan. waxaa noogu dambeeya dollar sign underline. dollar sign macnaha iyo underline waa calaamada dollarka goormee la isticmaalaya. calaamada dollarka waxaa la isticmaalaa trade balance-ga marka la joogo aan si kooban ugu laabto hal mar. waxaa la isticmaalaya debitka bilowgiisa calaamada dollarka la isticmaalaa, creditka bilowgiisana calaamada dollarka la isticmaalaya, totalka ugu dambeeyana calaamada dollarka la isticmaalaa. saddexdaas mar la isticmaalaa. يعني waxa arkaysaa qof xisaabiye ah akoon walba hortiisu calaamad dollarka raacsiinaya lama ogola marka standard ma debitka bilowgiisa creditka bilowgiisa calaamadda ay isticmaalayso ee dollarka ama calaamad shilinka calaamadda ay isticmaalayso mar walba ama euroga totalkana sidoo kale ayadana waxa isticmaalaysaa calaamadda horgala uga dhigaysaa. saddexdaas meel ayaa la isticmaalaa. intaas uu kugu sheegay dollarka. Underlying-kana waxa hoosta ka xariiqa isagana hal mar aan tagno practical idin fiican. debitka marka isku dardartid hal mar hoos ka xariiq uu ku leeyahay, creditka marka isku dardartid hal mar hoos ka xariiq, totalka markii aad dejisana underline laba xariiqsi kan waxa waaye hal xariiqsi marka wada dejinaysid. okay intaas uu noogu sheegay qaybtan casharkeenana intaas uu ku egyahay. aad u mahadsantihiin. casharada waa muhiim in aad baraatikeydid buug iyo qalin inta soo qaadatid baraatikeydid oo gacanta la gashid. casharadan haddaad fahanto waxaan rajaynayaa in computerized-ka casharada ina ay si fudud aad u diiwaan gelin doontid, saameyntoodana aad hore ka fahmi doontid.